Bismillah, alhamdulillah, wa kafa, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Welcome, everyone. Welcome to Automatic American English College. My name is Teacher Ahmed. Maanta waxaan qaadanaynaa cashar beginner oo bilowa basic English. Waxaan ahay macalin Englisha. Waxaan ku dhignaa offline iyo online ba ardayda u baahan laga caawiyo luuqadda Englishka. haddii aad tahay arday advanca waad iska dhegaysan kartaa laakiin casharka maanta waxaan ugu talagalnay basic english dadka bilowa oo u baahan dhawaaqa arday badan ayaa soo weydiiyey waxay odhadeen macalin waxaan u baahannahay basic english sida eriyada amba kelmadaha loogu dhawaaqa how to pronounce the words and the letters the individual words and the individual letters insha allah marka maanta waxaan qaadanaynaa cashar basica insha allah haddii aad garanaysid qof u baahan cashar basica la share gare insha allah la wadaag videoga okay aan toos u bilaabna casharka are you ready all right waayahay so let's begin xaggan waxaan arki kartiin waxaan ku dhawaaqayaa alphabet the alphabet waxa weeyaan waa alphabetka waa xurufaha englishka waxaa jira 26 letters imisaa jira 26 letters 26 so sidan ugu dhawaaqayo insha allah idinkuna ku dhawaaqa okay marka dhawaaqan isticmaalayo waxaa laga isticmaalaa dalkan maraykanka marka anigu baranaya luuqadda englishka xaggan maraykankan ku bartay marka waxa uu ka yara duwan yahay dhawaaqa laga yaaba dhawaaqa adigu maqashay inuu ka yara duwan yahay so ila yara eeg insha allah then isku day waxa fiican ina book iyo qalin maybe a notebook or a pencil and a pen inaad book iyo qalin soo qaatid oo ku qortid kelmadahan qaadan doono so cashir caadi ku noqon kara videogan baad haddaad doonaysid waad save garayn karta insha allah and then waad usoo noqon karta okay alright isla yara eegno let's start so the first one waa a afkaad eegi doonta carabka xaggan dhigayo afka a b b waa arki kartiin sooma b b b oo la yara adkaynaya c baa lagu dhawaaqa kaa c d E, F, G, H. ardaydeedu waxaa maqlay arday kaa ku dhawaaqaysa h bay ku dhawaaqa ardayda qaarkood laakiin waxaa saxa h I J waa yara adkaynaysa J maaha ja soomaali ahaan uu noqonaya kaasi ja laakiin waa j english waa j waa jim oo kale carabi k l m n o p kaas waxaa la socdaa naqis amba hawo yar marka wuxuu kaga duwan yahay kan kale hawaanba naqis lama socdo waa b diminta isku xidhisa b kan laakiin neef hawo yar baa ka soo baxaya p haddii aad iminka warqadoo kale soo qaadid iminka tusaale warqadinoo kale soo qaado inado p warqaddu way dhaqaaqaysaa p q baa lagu dhawaaqa q r carabka dub baa u dhigaysa okay carada carabkana xagga sare ma taabanayso okay just way u dhexaynaysaa afka dhexdeeda carabka waxaa dhigaysa xagga dhexan baa dhigaysa okay marka waxaa oranaysaa r how are you s t u v kaas gariir baa la socda uu ka duwan yahay kan ha ku khaldin f kan waa vibration baa la socda v w x baa la socda x y marka ardayda qaar waxaa maqlay kaas inay ugu dhawaaqaan egis laakiin waxa saxa x y iyo z okay A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,
Y and Z amba Z na waa la odhan karaa. Now you know your ABCs. Okay, let's take a look. Waxaan samaynaynaa iminka spelling iyo kelmadana insha allah waan ku dhawaaqina kelmadaha xuruufta waan yara eegina iyo spellingkooda iyo dhawaaqa. Okay, so the first one waa A. kelmadanoo kale ku dhawaaq ant. haddaad doonaysa sentence haddaad doonaysa sentence baad qori karta xagga hoose. isku day inta qori kartid sentence. isku day in waxaba sentence soo qortid insha allah adigoo ereyga isticmaalaya. ant baa lagu dhawaaqaya. ant waa maxay? ant waa quraanjada. ant sidee loo spell garay? haddaan ku idhahdo please spell ant, can you please spell the word ant? miyaad spelli garayn kartaa kelmadda ant? ila eegay haddaba. A N T. marka A N T marka lasku xidho waa ant. ant. There is an ant. There are two ants here. The next word, army. ciidanka soo maa. ARMY. army. Can you spell army? Now you can. army. ARMY. waay maxaa ku xiga? apple. pa weeyaan apple. apple is APPLE. apple. Okay, so ma odhan si apple maaha waa apple. Okay, let's keep going. B, banana. Can you spell banana? miyaad ku spell garayn karta? ma spell garayn karta banana? Okay. B, A N A, banana. Can you spell broom? maad spell garayn karta broom? banana waa mooska soo maa. broom, BROOM. waa scope amba xaaqinta fiiqda. broom baa lagu dhawaaqa. broom. boy. Can you spell boy? BOY. boy waa inanka yar. waxaa loo yaqaanaa boy, shabaabka, inanka yar. boy. Wait, let's go to C. xarafka C marmarna waxaa loogu dhawaaqa ka, marmarna waxaa codka lagu dhawaaqa sa. labadaba wuu leeyahay english ahaan. soomaali ahaan waa a soo maha, laakiin english waa amba ka amba sa. car sida loogu dhawaaqa CAR. spellingka CAR waa arkaysa xagga soo maha. car. waayahay maxaa ku xiga? coat. Can you spell coat? ma spell garayn karta coat? COAT. Coat is like a jacket that you wear. waa sida jacketka koorka la xidho weeyaan coat. waayahay carna waa baabuurka, gaariga. Next word, color. 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 There are a lot of colors. Do you see the colors? There are red and green and yellow and blue. A lot of colors. marka colora fara badan baa jira soo maa. Okay, good job. sii wadno. D, dog. DOG. dog soo maa. dog waa eyga. dream. 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 dream waa riyada. okay, marka wax lagu riyoonayo I dream marmarna waxay noqon kartaa waxaad mustaqbalka doona sida inay noqoto. I dream about becoming, or I dream. What did you dream about last night? xali maxaa ku riyootay? Well, I dreamt about traveling to another country. waxaan ku riyooday anigoo waddan kale u safriya, or something like that. Now, D iyo R marka laisku xidho, D iyo R waxaa loogu dhawaaqayaa ja. ma la odhanayo dareem. No, lama odhanayo dareem. waxaa la odhanayaa dream. sida drive, gaariga marka la wado waxaa la odhanayaa drive amba driver. lama odhanayo driver. maya waxaa la odhanayaa driver. waa ja. driver. dry sama. kanoo kalena waxaa la odhanayaa dream. maxaa ku xiga? dollar. 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 What's a dollar? Money. sama. waa lacagta. dollar. R ta dambena waa khafiif. qolada ingiriiska waxay yidhahdaan dollar. adigu wax sidaasoo kala. laakiin maraykan xagga waxaan ku dhawaaqnaa dollar. okay.
I wish inaan carabkayga ku tusi karo rrr dollar xagga dambe baa dhegaysa carabka okay e elephant e waa maxay e for elephant 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 okay waa ila socotiin soo maaha ila socda awo elephant e okay e l e p h a n t elephant marka elephant waa maroodiga waad garanaysa soo maa elephant now p iyo h marka laisku daro fa buu noqonayaa marka la socda meel ku yara calaamadsada p iyo h fa buu noqonayaa sida phone okay I waa maxay waa isha e y e waa I waxa weeyaan waa isha okay maxaa ku xiga extreme 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 waa maxay extreme oo wax fara waxa weeyaan aad iyo aad iyo aad xad marka wax la xad dhaaf xad gudub like extreme in badan so extreme e x t r e m e extreme oo in badan 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 xoogaa say it okay marka wax la xad dhaafo waxa la extreme okay u fiirsada t iyo r marka la isku xiro meel ku calaamadsada buuga ku qorta t iyo r marka la isku geeyo waxa lagu dhawaaqaya cha sida ba ta chadayna so cha baa la oranaya extreme laguma dhawaaqayo extreme no waa extreme marka sida try true lama oranaya taray taru taren waxa la oranaya try true terrain waa cha t iyo r xasuusta okay